madaxweyne Saddam Hussein oo telefishinka ka hadlayay markii uu dagaalku bilaabmay ayaa yiri uma baahni in aan hadda idin xasuusiyo waajibka idinka saaran difaaca wadankiina. duulaankii Mareykanku ku qaaday Ciraaq ama dagaalkii loogu magac daray dagaalkii saddexaad ee gacanka Carbeed ama hawlgalkii xorriyadda Ciraaq iyo sidoo kale magacyo badan oo kale oo loo adeegsaday in lagu tilmaamo hawlgaladii military ee ka dhacay dalka Ciraaq sanadii 2003 kaas oo socday laga soo bilaabo bishii Maarso 19 ilaa 1 May ee 2003 taasoo horseeday in militariga Mareykanka iyo Ingiriiska oo garab ka helaya qaar ka mid ah dawladaha xulafada la ah Mareykanka. halkani waa barnaamijkeeni xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan Horfadhi Media. sida ku xusan qeexitaanka golaha amniga ee qaramada midoobay ee ku saabsan xaaladda dalka Ciraaq, qaanuunkaas oo tirsigiisu ahaa 1483 soona baxay sanadkii 2003 taasoo khasaaraha ka dhacay halkaas lagu qiyaasay 1 milyan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira iyo malaayiin barakacyaal ah. sidoo kale khasaaraha hantiyeed ee labada dhinacba ka soo gaaray waxaa lagu tilmaamaa 10,000 oo bilyan oo dollar oo dalka gelisay xasilooni daro siyaasadeed iyo mid diimeedba oo gaadhay halkii abid ugu sareysay laga soo bilaabo xilligii dagaalkii ilaa haatan. Saddam dagaalka kadib waa la daldalay iyadoo lagu andacoonayay inuu haystay hubka sida baan wax u gumaada ee nuclearka, waxaana Ciraaq maalinta kadib ay gashay god dheer oo ay adag tahay waqti xaadirkan si ay uga soo baxdo, sababtoo oo ah dilka iyo gabadfaladu weli way ka socdaan dalka Ciraaq. afartii bishii September 2002 telefishinka CBS News ayaa sheegay inuu helay dokumenti muujinaya in amarka duulaanka lagu qaaday Ciraaq uu iska lahaa xogayihii difaaca Mareykanka ee waqtigaasi Donald Rumsfeld kadib saacad markii ay ka soo wareegtay weeraradii 11 September ee sanadkii 2001 ka dhacay Washington iyo New York. inkastoo warbixinada Mareykanka oo dhani ay ku eedeeyeen weeraradaas inay ka dambeeyeen ururkii Al-Qaacida ee uu hogaaminayay Osama bin Laden, laakiin arrintaas oo dhan wuxuu wasiirka difaaca ee Mareykanka Donald Rumsfeld ku doonayay inuu duulaan ku qaado Osama iyo Saddam isla sanadkaasi. sidoo kale isla sanadkaas dawladda Ingiriiska ee uu hogaaminayay Tony Blair ayaa soo bandhigtay warbixino ay kaga digayaan khataraha ka imaan kara haysashada Ciraaq ee hubka wax gumaada, taasoo ahayd isku day dawladda UK ku doonaysay inay taageero ka hesho shacabkeeda iyo tan bulshada caalamka oo door bidaysay isla markaana ay saneyd duulaankii Ciraaq. inta kadib dawladda Ingiriiska ayaa ku biirtay isbahaysigii Mareykanku hogaaminayay ee duulaanka ku qaaday Ciraaq, waxayna labada dal ku eedeeyeen hogaamiyihii Ciraaq ee xilligaasi Saddam Hussein inuu haysto hubka sida weyn wax u gumaada ee nuclearka. golaha amniga ayaa markaa kadib meel mariyay qaraar dib loogu celinayo gudiyada baaritaanada iyo kormeerka ka wada hubka Ciraaq, taasoo lagu baarayo in Saddam uu haysto hubkaasi nuclearka ah ee lagu tuhunsan yahay. haddii ay dhacdo inuu Saddam diido inuu la shaqeeyo gudiyadan, waxay la imaan doonaan cawaaqib xumo iyo in loo isticmaali doono awood buuxda, iyadoo adduunka waqtiga filayay in cawaaqib xumada ka dhalanaysa diidmada in dalkiisa laga baaro hubka wax gumaada ay tahay oo kaliya cadaadiska diblomaasiyadeed ee lagu saarayo Saddam Hussein. macnaha dhabta ah oo fariintu xambaarsaneed ayaa ahayd in qorshe uu Mareykanku ku sharciyeynayay oo la military oo ka soo horjeeday dastuurkii qaramada midoobay qaraarka tirsigiisu ahaa 1441 oo ahaa in aan marnaba la ogolayn in awood loo adeegsado dalka Ciraaq. mowqifkaas ayaa bilowgiisii aydsanaa Mareykanka iyo Ingiriiska, laakiin qorshaha Mareykanka ayaa isbedelay mana noqon mid ku nagaada baaritaanada qaramada midoobay waday, iyadoo indhaindheeyaasha qaarna horey u saadaaliyeen in Mareykanku go'aansaday inuu Ciraaq ku bartilmaameedsado military ahaan, taasoo aan la eegin go'aanada ka soo baxa qaramada midoobay. halka hadafka kaliya uu Mareykanku ka rabay qaramada midoobay ay ahayd isku day uu ku doonayay inuu ku helo sharciyad caalami ah oo ku saabsan dagaal oo la mid ah sharciyadii loogu fasaxay dagaaladii labaad ee Khaliijka Kuwait. inta kadib Mareykanka ayaa bilaabay qorshihiisii ay ciidamadiisa militarigu ku sii fidayeen xuduudaha dalka Ciraaq, isagoo u diray kumanaan ciidan dalalka ay ku jiraan Kuwait iyo Qatar iyo Bahrain, iyadoo dhanka kalena dawladda Mareykanka iyo Ingiriisku damac kaga jiray dagaalka Ciraaq marka laga yimaado tan amni. sababta ugu weyn ayaa ahayd inay gacanta ku dhigaan saliidda hodanka ah ee dalka Ciraaq. waxaa jiray warar soo tarayay oo ka hadlayay kicinta xiisadda duulaanka Ciraaq inay ka dambeeyeen mas'uuliyiinta shirkadaha shidaalka waaweyn ee Mareykanka oo ay ka mid ka yihiin tusaale ahaan shirkadda saliidda lagu magacaabo Halliburton ee uu madaxweyne ku-xigeenkii Mareykanka waqtigaasi Dick Cheney uu shirkadda maamulayay ilaa sanadkii 2000, iyadoo la ogaaday arrintaas inay xaqiiq tahay kadib markii
wasaaradda difaaca Mareykanka Pentagon ay siisay shirkadii Halliburton laba qandaraas oo kala duwan oo aysan ku xidhnayn wax shuruuda xilligaas oo ahayd November 2003. haddaba qandaraaskii ugu horeeyay waxa uu ahaa $7 bilyan oo dollar si loogu dayactiro kaabayaasha saliidda iyo bixinta agabka saliidda ee la sifeeyay ee dalka Ciraaq, iyo tan labaad oo ah taakulaynta saadka ee ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe iyo bartamaha Asia oo qiimihiisu yahay $8.6 bilyan oo dollar. sidoo kale dukumeentiyada qarsoodiga ah ee dawladda Ingiriiska ayaa xaqiijinaya jiritaanka xiriirka adag oo ka dhaxeeya shirkadaha saliidda iyo qorshihii fulinta howlgalka lagu qaaday Ciraaq, waxaana la sheegay in qorshayaasha ka faa'iideysiga kaydka saliidda Ciraaq ay ka wada hadleen madaxda dawladda iyo shirkadaha waaweyn ee shidaalka ee caalamiga ah, gaar ahaan kuwa Ingiriiska oo ay ku jiraan Shell, BP iyo BJ sanad ka hor taariikhdii duulaanka Ciraaq. waxaana horaantii Janaayo ee sanadkii 2003 uu madaxweynihii Bush ka jeediyay Fort Hood, taasoo ah ugu muhiimsan ee militariga Mareykanka, ku dhawaaqay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu duulaan ku qaado dalka Ciraaq haddii Ciraaq ay diido inay joojiso hubkeeda wax kumaada. isagoo xilligaasi Blair iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush ay si qarsoodi ah u wada qorsheeyeen waqtiga bilowga ah ee ololaha militari loo asteeyay bishii Maarso 10keeda in howlgallada duqeynta la bilaabo, iyadoo Mareykanku uu hormuud ka noqon doono duulaankaasi. waxaana inta aan duulaanka dhanka dhulka uusan bilaaban uu madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush uu ka qayb galay kulankii ururkii NATO ee bishii November 2002, halkaasoo Mareykanku awood u helay inuu taageero ka helo 49 wadan oo ololihiisa ka dhanka ah duulaanka Ciraaq. isbahaysigan waxaa loogu magac daray isbahaysiga rabitaanka, laakiin isbahaysigani uma xoog badnayn sidii isbahaysigii dagaalkii labaad ee Khaliijka, maadaama 98% ciidamada militariga ay ahaayeen ciidamada Mareykanka iyo Ingiriiska. tirada guud ee ciidamada isbahaysiga ayaa gaadhaya 300,884 askari, halka 10 dal oo kalena ay kaga qayb galeen isbahaysiga hawlo kale oo aan dagaal ahayn. markay ahayd Maarso 20keedii 2003, 90 daqiiqo kadib waqtiga ay ku eekayd muddadii loo qabtay madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein, ayaa George W. Bush waxa uu sheegay Saddam Hussein iyo labadiisa wiilba inay ka baxaan Ciraaq, iyadoo la maqlayay qaraxyo ka dhacay caasimadda Baghdad. waxaana 45 daqiiqo kadib madaxweynaha Mareykanka uu cadeeyay inuu soo saaray amaro la xiriira bartilmaameedyo duqeyn ah, kaas oo markii dambe la ogaaday inuu ahaa howlgallo lagu beegsanayo guri uu Saddam Hussein la rumaysnaa inuu joogay. taliska ciidamada Mareykanka ah ee uu horkacayay janankii Mareykanka ahaa ee Tommy Franks waxay ku tiirsanaayeen qorshaha duulaanka qarsoon oo ah xeelad ciidan oo Mareykanku watay, waxaana badiba la rumaysan yahay in habka duulaanka dhici doona uu noqdo mid marka hore dhulka laga weeraro kadibna ay ku xigi doonto weerarka xagga cirka sida hore uga dhacday dagaalkii labaad ee Khaliijka. waxaase taa ka bedelneyd habka ciidamada Mareykanku duulaanka ay u qaadeen oo ahaa mid lama filaan ah oo adkayd qorshihiisa in la ogaado, taasoo keentay in hal mar la wada qaado weerar cir iyo dhulba ah. waxaana ugu magac dareen qorshahaasi qorshaha naxdinta iyo cabsida oo ujeedku ahaa in si dhaqso ah loo bartilmaameedsado hoggaanka Ciraaq lana baabi'iyo lana soo koobo khasaaraha ka dhalan karta dagaalkaasi. duulaanka ayaa runtii ahaa mid dhaqso badan oo muddo 3 isbuuc kadib ayay dawladda Ciraaq ku dhacday, waxayna ciidamada isbahaysigu oo gaadhaya in ka badan ilaa 300,000 oo askari ku guuleysteen gacan ku haynta goobihii shidaalka Rimayla, Qasra iyo Faw ee dhanka xuduudda waqooyi. waxayna sidoo kale gacanta ku dhigeen dekedihii goobahaasi ee muhiimka ahaa. dhanka kale waxaa galbeedka iyo waqooyiga Ciraaq taangiyada Mareykanku ku qulqulayeen saxaraha lama deegaanka ah ee dalka Ciraaq, iyagoo ka gudbay magaalooyinka waaweyn ee jidkaasi maro si ay isaga ilaaliyaan dagaalka magaalooyinka halkaas oo ay si dhaqso leh uga sii gudbeen caasimadda Baghdad. laakiin bishii Maarso 27keedii 2003 ayaa duufaankii dabaylaha ciidda ee ka jiray saxarahaasi waxay hoos u dhigtay horumarkii degdega ahaa ee ciidamada Mareykanka, waxayna ciidamada Mareykanku sidoo kale iska caabin adag kala kulmeen ciidamada Ciraaq meel u dhow deegaanka Al-Kifi ee u dhow magaalooyinka Najaf iyo Kufa. laakiin dagaaladaas ma aysan sii dheeraan oo waxaa markiiba ciidamada Mareykanku dagaalkaasi caawiyay diyaaradaha duqeynta waday ee isbahaysiga. halkaasna waxaa lagu jabiyay ciidamada Ciraaq oo waxaa halkaasi looga qabsaday gacan ku haynta aagaasi iyo garoonka Idleel ee ku yaala goobtaasi. maalmo kadibna ciidamada isbahaysiga ayaa u ruqaansaday dhanka caasimadda Ciraaq ee Baghdad, iyadoo qorshahooda ugu horeeyay uu ahaa in ciidamada gaashaaman ee Mareykanku ay hareereeyaan magaalada oo ay dagaal jid ama lug ah ku qaadaan magaalada Baghdad, iyagoo gacan ka heliyay ciidamada cirka ee Mareykanka. halkaas oo 5 Abriil 2003 kooxda ciidanka Mareykanka oo ka koobnaa 29
taangi iyo 14 baabuur oo nooca Bradley oo gaashaanka dagaalka wata ayaa waxay weerar ku qaadeen madaarka caalamiga ah ee Baghdad waxaana ciidamadu iska caabin aad u daran kala kulmeen cutubyo ka tirsan ciidamada Ciraaq ee difaacyada garoonka diyaaradaha waxaana halkaas ciidamada Mareykanku ka soo gaaray jab iyo khasaare oo ay ku jirto hawlgallo ismiidaamin ah oo ay fuliyeen laba haweeney ah oo Ciraaqiyiin ah laakiin ciidamada Mareykanka ayaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan madaarkaasi 7 bishii Abriil ciidan kale oo hubeysan ayaa weerar ku qaaday qasriga jamhuuriga ah ee Baghdad oo ay awood u yeesheen in ciidamada Mareykanku saldhig ka dhigtaan qasriga waxaana saacada kadib ciidamada Ciraaq ee xarasul jamhuuriga ahaa ku yimid burbur iyo inay jabaan sababo aan wali la ogeyn awgeed iyadoo la shaaciyay oo kaliya inay jiraan eedeymo sheegaya in hogaamiyaasha ciidamada Mareykanku ay awood u yeesheen inay heshiisyo la galaan hogaamiyaasha ciidanka xarasul jamhuuriga qaarkood waxaana halkaasi si lama filaan ah uga baxay ciidamadii awoodda badnaa ee Ciraaq kadib iyadoo la filayay inay dagaalo ba'an ku dhex maraan iyaga iyo ciidamada Mareykanka oo ka dhaca wadooyinka waaweyn ee magaalada madaxda Baghdad waxayna 2 maalmood kadib ciidamada Mareykanku ku dhawaaqeen inay la wareegeen inta badan dhulka Ciraaq waxaana inta wixii ka dambeeyay wakaaladaha wararku ay soo baahiyeen muuqaalo taangiyo ciidamada Mareykanku leeyihiin oo lagu soo tuurayo taalada madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein ee caasimadda dhexdeeda waxaana ciidamada Mareykanku saareen calanka Mareykanka wajiga taalada si ay uga bedelaan calankii hore ee Ciraaq waxaana kadib markii ciidamada Mareykanku la wareegeen gacan ku haynta Baghdad ay galeen magaalooyin kale oo dalka Ciraaq sida Kirkuk oo waqtigaasi ahaa 10 Abriil iyo magaalada Tikrit oo ahayd magaaladii uu ka soo jeeday madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein 15 Abriil 2003 halkaas oo ciidamada isbaahaysigu oo fulinaya hawlgaladii lagu soo qabanayay Saddam ay ku galeen kuna soo qabteen waxaana Saddam Hussein kadib uu maray maxkamad muddo sanado gaaraysa isaga iyo dhowr ka tirsan saraakiil ciidan oo Ciraaqiyiin ah halkaas oo 5 bishii November 2006 lagu xukumay dil daldalaad ah iyo iyadoo xukunkaasi lagu fuliyay 30 Diseembar isla sanadkaasi oo ku beegneed maalintii ugu horeysay ee ciidda Carafada